wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo maamulka gobolka Saaxil ayaa maanta madaarka Berbera ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday shirkadda maalgashi ee magaceeda loo soo gaabiyo SKA waxaana wafdigaasi horkacayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay oo ku soo dhaweeyay madaarka Berbera barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed gudoomiye Faysal Cali Waraabe iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socday shirkaddaasi laga leeyahay wadanka Ingiriiska saaka magaalada Berbera garoonka Berbera waxaan ugu soo dhaweynaynaa wafti ka socda SKA oo qolada maalgashiga ah waa Ilaahay mahadi iyo gudoomiyaha xisbiga UCID aad baan u salaamaynaa oo waftiga hormood ka ahaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa u baahan yihiin oo u fududeyn doonaa insha Allah taala waftiga waxa weeye waa company la yiraahdo SKA International Group weeye وصحن وحدوني إني مال قشدان دلكينا سبيشلي بربرة ما جاب بربرة وحنا قلنا ساسين دي شيء هون كوك بنقول إن شاء الله تعالى وكمني جوهري قرض مرة إيمانية دوينو ديار قلونا أو دلك سود وينا صو مرحبا سنا سيدلكينا لو أو سوتشي توم مال قش بدنوي مادانا وحكوا حين انتهاي سين ودتكم بقابل لو الشرعيين يسوح لوجودنا ما يه دخسها بدن ayaa weeye magaa waxaan leeyahay insha Allah taala waxay heli doonaan waqti fiican gamca fiican bay heli doonaan soo dhaweyn fiican bay heli doonaan deeynuna wakaasay waxaan the owner of the SKA group based in Dubai we're visiting Berbera with an interest in investing in Berbera and the logistics opportunities looking at the seaport and the airport. We also will be visiting Hargeisa to meet His Excellency the President, and we're very interested in investing in Somaliland and seeing how we can support the gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka madaxtooyada Axmed Xaashi iyo wasiirka qorsheynta Qabyo Tire. Today we are here to welcome SKA company who are visiting today in Berbera and in Somaliland. They would like to invest in Somaliland regarding in logistics on ports, on sea, and any other opportunities that might see to invest in Somaliland. So we are pleased to welcome here. This is your country. Please welcome. The Somaliland government priority is to welcome all investors all over the world. UK وهذه aad baan soo dhaweynaynaa waxaanu intii maalgashiga ay sameeyeen sharaa'iga waaweyn DP World iyo Emirates waxa had iyo jeer ay ku soo dhiirday caalamkii sharaa'igi waaweyn ay caalamka ay ugu soo dhiirday waa ka arkaysan waa sharaa'iga ugu waaweyn SKA ka dhisan UK waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga UCID oo had iyo jeer u taagan in uu ka qayb qaato horumarka dalkan iyo qarankan oo runtiina ku ah ku suntan taariikhda sooyaalka Somaliland waxaan isagana u mahadnaqaynaa gudoomiyaha ku xigeenka labaad UCID Saciid Cumar oo isaguna si fiican uga soo shaqeeyay arrintan oo waftiga isaguna hogaaminaya Peter Pan isagana aad ugu mahadnaqaynaa iyo waftiga ay wada socdaan Julius waxaanu leenahay soo dhawaado welcome to the Somaliland waxa halkan aynu maaha markii ugu horeysay intaas oo imika company oo waaweyn oo kambaniyada caalamka haday Mareykan haday Khaliijiin iyo haday UK bayin bariyahan dambe aad marka inaynu soo dhaweyno wadankeena waa wadan dihin opportunity fara badan baa yaala inay maal gashadaan waan ku soo dhaweynaa insha Allah biidnillah telefishinka caalamiga ee Sab TV magaalada Berbera.